ويا وما سنتها موضوعنا إلى لنا الشيخ فاطمة. بسم الله. وابوغادينا يا معهدك iyo mas'uuliyiinta inta fadhiso su'aalaha hal su'aal kaliya la yiri waan ugu leeyahay laakiin tacliiq yar raacsana in la ogolaadana waa rajaynaa su'aashayda waxa waaye riyahan waxa soo batay hadallo been abuur ah oo taariikhda laga been sheegayo oo safiirkii kiyaanka Israa'iil iyo dad badan ba ay buunbuuninayaan oo gooni-goosadka oo ah 60kii ka hor ayaaba la aqoonsaday maxaa la yiraahdaa Soomaaliland dawladda ay u saciinay aqoonsigooda marka dawladda Soomaaliyeed calankeeda 54 markii la sameeyay wax Soomaaliland la yiraahdo calan ma qabin calanka la taagana ka soo ahay marka see bulshada Soomaaliyeed taariikhdaas loo beenin karaa ayadoo qoraal ah ayadoo hadal aqoon-yahankan ka rabaa hay doctor Cilmi waxaa la sheegaa in muxuu ahaa Soomaaliland ay moogtay independence kadibna dawladda ay noqotay arrintaasi xoogaa taariikhda aad baa la isku qaldaa waxaan u maleynayaa wafdigii tagay muxuu ahaa London bishii May 5 1960kii waxaa laga wareystay muxuu hogaaminayay cigaal wareysigii BBC-da siiyay waad wada dhageysan kartaan wuxuu waxaan isla soo muxuu afgaranay inaan muxuu ahaa dawladda Britain ka wada hadalnay in Soomaaliland gobonnimo la siiyo si ay ula midowdo muxuu ahaa walaalahooda koonfureed waxayna dawladda Britain xilligaasi ku dhawaaqday waxaanu siinaynaa gobonnimada ay doonayaan dadka reer Soomaaliland si ay ula oo muxuu ahaa waxa siinaynaa abad moogtay 1 July muxuu ahaa 1960ka si ay ula midoobaan muxuu ahaa walaalahooda Soomaaliyeed saasay ku caddahay annagoo ka turjumayna dadkaasi muxuu ahaa rabitaankooda iyo sida ay jecel yihiin marka waxa weeye macnaha Soomaaliland waxa la siinayaa gobonnimadeedii si ay muxuu qaataan 1 July oo ula midoobaan walaalahooda ula midoobaan Soomaalida muxuu ahaa Soomaalida Italiya ay gumaysanayso marka saasay moogtahay arrintaasi saasay very clear u tahay marka waxaan isleeyahay taasi waa taariikh cad weeye oo la dhageysan karo wareysigaasi waya waa mahadsantahay أنا waxaan rabaa inaan sheego dadka waxa lagu mashquulaa calanka iyo unionkii iyo sheekooyinkaas taariikhiga oo ay ku celceliyaan iyo ictiraafka Soomaali waqooyi iyo koonfur ayagu waxay ku heshiiyeen hal calan inay isla qaataan caasimadu inay Muqdisho noqoto labada baarlamaan in la isku daro hal dawlad inay noqdaan heshiiskaas oo jira ayay sabab kala horbareen 26 ay mataqaana gobonnimada Ingiriiska markay ka qaateen intibay ay ku aqbalsan ayay markay yimideen magaalada Muqdisho marka waxaas la akhrihayo sheeka baralay waaye oo la isku akhrihayo taariikhda laga been sheegayo marka taayaa lagu mashquulin intaas waxa dheeri ahayd markii meeshan la iskugu imaanay waxa isku yimaaday laba xisbi oo ka socda waqooyiga Soomaaliya laba xisbi hal xisbi xataa ma ahayn Somali National League iyo USB waxa ku mideysnaay gobolka hadda la dhaho Sool iyo Awdal waxaana magacooda ku saxiixay garaadka hadda jooga aabihiis garaad cali jaamac cali garaad jaamac iyo waxaa kaloo ku saxiixay xaaji Ibraahim Nuur oo reer Boora ma aha oo USB ah iyo maxamed xaaji Ibraahim cigaal iyo Axmed xaaji Ducaale oo Somali National League ayaa kaasi marka waa laba xisbi dawladda dawladdi waa laba xisbi ahay dawlad ma ahayn hadda marka maxay tahay labadii xisbi ayaa hal xisbiyo kamida ayaa wuxuu rabaa inuu sheegto xuquuqdiisa iyo xisbiga kale xuquuqdiisa hadda marka qayb waa laga soo dhigay oo Sool waa la dhisay